dugsiyada al irshaad schools بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين ومعلن أحمد عبد الله وإذنكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu mar labaad xiisadeeni labaad qaadan doonaa casharadeenii online ka ahaa. maadadeenu waa maadadii sayniska iyo grade 8kii. waxaynu hore usoo bilownay chapterkeenii waterka oo aynu kusoo baranay laba hab oo biyaha aynu ku ilaalin karno oo kala ahaa afforestation iyo planting cover crops. waxaynu maalintii hore soo dhiganay dhirta oo la jara dhibaatada ay leedahay sidaynu u yareyn karno dhirta oo la jaro. maanta waxaynu baran doonaa insha Allah waxa loo yaqaano afforestation. afforestation micnaheedu waxa weeyaan waa dhirayn ama dhirbeerid, in dhir la beero oo deegaan dhir laga beero. hadaba afforestation waxaynu ku qeexaynaa is the planting waa beerista of trees, dhirta la beerayo on a site meel laga beerayo or at place ama goob laga beerayo which were kuwaasoo ahaa previously markoodii hore devoid of trees, meel ay dhirtu ka dhammaatay ama aan dhir lahayn. marka dhir laga beero meel aan dhiri ku oolin oo dhirtii ka dhammaatay baa waxaa loo yaqaanaa afforestation. dhirayn baa la yidhaahdaa ama dhirbeerid. ereyga vegetation is also sidoo kale another means of afforestation. waa macno kale oo uu yeelan kara kelmadda afforestation. waxaa kaloo la micnaa waxa loo yaqaano vegetation. haddaba waa maxay the main purpose of afforestation include? waa maxay ujeeddada ugu weyn ee loo sameeyo waxa loo yaqaano afforestation? dadku maxay dhirta u beeraan? dadku dhirta markay beerayaan ee meel dhir laga beerayo afar ujeeddaa loo beeraa. kow waxaa loo beeraa inay noqoto village and town shelter beltis, in xayndaab magaalo looga dhigo, in meel magaalo ah oo aan dhir lahayn xayndaab lagu soo xayndaabo oo dhir laga beero. laba, dhirta waxaa kaloo loo beeraa in laga dhigo sand dune fixation waxa la yidhaahdo. sand dune fixation waxa weeyaan waxaynu af Soomaali u naqaano bacaad celinta, in meel ciidi ku socoto lagu joojiyo ciidii. saddex waxa weeyaan windbreak, dabayl celiyayaal, in meel ay dabayl xoog ugu soo dhacayso sida beeraha kale dhir laga beero si ay dabayshi uga joogsato. live fencing waa deyr nool oo ah maxay in beer aad sameynaysay aad deyr u samayso, deyrkaasina uu yahay dhir wada nool uu yahay. okay, haddaba afartoodaasaynu mid mid u qaadan doonaa. waxaynu imiga bilaabi doonaa kii koobaad oo ah ujeeddada koobaad oo dhirta loo beero ah waxa loo yaqaano village and town shelter beltis, xayndaab magaalo. waxaa lagu leeyahay village tuuladu or a town ama magaaladu may already be situated, waxaa laga yaabaa inay dhacdo ama ay ku taalo in treeless area, meel bilaa dhir ah. but laakiin the population dadka halkaa ku nool realize waxay xaqiiqsadaan that in new forests, kaymo cusub oo meesha la keenaa could shelter them, iyaga hoy uu uga noqon karo from strong winds, dabaysha xoogan ee kusoo dhacaysa and cold iyo qabowga at night habeenkii. oo marka meesha dhir laga beero dabayshii xooganayd ee deegaanka kusoo dhacaysay way yaraanaysaa. okay, haddaba afforestationka oo dhirbeerista ahi as an environmental strategy, isagoo ah khidad deegaan ah, will suit wuxuu ku haboon yahay their needs, baahidooda ah maxay in laga joojiyo waxa loo yaqaano strong windska iyo cold at night, qabowga iyo dabaysha xoogan si looga joojiyo waa in dhir la beero oo meesha deegaankaasi waa in dhir laga beero. qodobka labaad aynu soo qaadano waxa loo yaqaano sand dune fixation, bacaad celin, meel ay ciidi ku soo dhacayso oo ay ciid fara badan dabayshu keenayso oo ciidaasina weliba nooca loo yaqaano sand dune-ta ay tahay ciidda bataaxa ah ay tahay in ciiddaa lagu joojiyo beeris dhir la beerayo. haddaba marka dhir laga beero ciiddii soo socotay ee ay dabayshu soo qaadaysay iyana way inaga istaagaysaa, way inaga istaagaysaa. haddaba sand dune baynu qeexi doonaa oo ah ciidda bataaxa ah. sand dune is an accumulation, waa ururid ay ururto of so many thousands of tons, kumanaan tan of sand particles oo ah ciid ama saxaro ciid ah
or dust ama board in one area meel ku urura blown by the wind dabayshuna ay keento ama ay ku soo ururiso markay dabayshu ciid xilliga xagaago kala wada aragteen dabayl xoogan baa dhacda ciid bay soo kaxaysaa ciidaas waxa la yiraahdaa sand dune baa la yiraahdaa hadaba sand dune to can come waxay timaadaa to block inay xidho the main roads wadooyinkii dadku marayeen ee gaadiidku marayay bay xidhaa ee in towns magaalooyinka or villages ama tuulooyinka and also sidoo kale damage waxay waxyeelaysaa the vegetation baadkii meesha ka baxayna way waxyeelaysaa oo ciidan meesha ku soo dhacaysa ay dabayshu soo qaadaysaa waxay waxyeelo u geysanaysaa dhirtii meesha ka baxaysay oo dul qarinaysaa hadaba sand dune fixation waa maxay tan waxaynu niri waa sand dune waa ciidii dabayshu soo qaadaysay sand dune fixation waa maxay waa joojintii ciida la joojinayay ee la xakameynayay is a technique waa khidad ama waa hab which will prevent kaasoo ka hortagaya or stop ama joojinaya the further spreading faafitaanka badan of such sand dune ee ciida noocan ay sameynayso intaas waxaynu ku qeexaynaa waxa loo yaqaan maxay sand dune fixation hadaba deer waxa jira several methods habab kala duwan of stopping oo lagu joojiyo sand dune ciida bataaxa but like one of the best mid kamida kuwa ugu fiican involves waxay la xidhiidhaa the using isticmaalida la isticmaalayo cactus plant geedka tiinka oo geedka tiinka marka meel laga beero halka laga beeray geedka tiinka geedkaasi si dhib yar buu meesha ugu faafaya ciidii dabayshu qaadaysayna isaga ayaa joojinaya ciidda ma meesha ka dhaqaaqaysaana ma jirto intaas arday waxay inoogu dhamaaday xiisadeennii maanta aynu ugu talagalnay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad idinkuna si fiican u akhrin doontaan qeexitaanadana aad awoodda saari doontaan exercise-yada buuga ku yaalana insha Allah ka shaqeeya wixii assignment-ana hadii lahayd ma insha Allah waan idin soo diri doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dugsiyada al irshaad schools